السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسر روسات أكاديمي مجاعي وعبد العزيز على نور. فضلا هذا القناة كل صوتها سبسكرايب ده هدي أهرين ولا تشوكتينا فيديو وان لايك صار أصحاب تدنوسي شرقري سيجوا فائدان أنت هتكفائدة إلا عاو حنك هلا هدي لا يرادو سيد الله حليو سيريس يا بارل كاباسيتريس أنا كاباسيترو اسكو حيران سي سيريس أما كاباسيترو اسكو حيران سي بارل سيدا لسكو جيا أو لسكو درا waxaan ku bilaabaynaa qaybta parallelka ah capacitorska parallelka waxaa loola jeedaa parallel hal meel ayay kasoo wada bilaamayaan hal meelna way ku dhammaanayaan sida darteed ayaa waxaa la yidhahdaa capacitorada noocaas waxaa la yidhahdaa waa parallel waxaan rabnaa inaan kasoo saarno hal capacitorada faraha badan inaan kasoo saarno hal capacitor oo CEQ aan u bixinay CEQ waxaa loola jeedaa equivalency capacitance equivalency capacitance ayaa loola jeedaa wuxuu u dhigmaa dhammaan capacitaradan oo la sugayo u dhigmaa haddaba waxaa jirta qaacido la isticmaalo qaacidadaasna waxay noo noqonaysaa sida tan equivalency capacitor waxay la mid tahay C1 oo lagu daray C2 oo lagu daray C3 ilaa iyo Cn ma xadidno macnaha number of capacitorska kuma xadidna labay noqon karaan 10 ay noqon karaan 100 ay noqon karaan sidoo kale waxaan gudbaynaa qaybta oo serioska serious waxaa laga wadaa sida sawirkan ka muuqata in capacitor dhamaadkiisa uu ku xiran yahay capacitor kale sidoo kale capacitor kale dhamaadkiisa ay ku xiran tahay capacitor kale macnaha si wuxuu iskugu xiran si taxano ah ayuu iskugu xiran yahay isla sidoo kale waxaan rabnaa ka soo saarno sawir noocaana inaan soo gaabino sawirkan aan saan ka soo saarnaa oo aan ka soo saarno C equivalent sidee la isku dadarayaa wuxuu opposite ku yahay kii hore oo waxaan dhahaynaa kulligood 1 over CEQ waxay la mid tahay 1 over C1 oo lagu daray 1 over C2 oo lagu daray 1 over C3 ilaa iyo 1 over Cn ayay la mid tahay waa opposite kii hore halkan markaa marayso hore waxaan usoo sharaxnay series iyo parallel resistors aan soo sharaxnay isbarbardhigga ka dhexeeya marka labadooda capacitors iyo resistors waa opposite labadoodu waxay isku yihiin lid ay isku yihiin lid waxaan ka wadaa resistorka serieska waxaa la iskugu daraa sida la iskugu daro capacitorka parallelka resistorka parallelka waxaa la iskugu daraa sida la iskugu daro capacitorka serieska casharadaas macnaha haddii aan soo arkina way ku jiraan channelka daawo raadi waad helaysaa haddana waxaan u gudbaynaa maadaama aan aragnay capacitor aan baranay waxa uu capacitor yahay cashirka hore aan kusoo sharaxnay sidoo kale aan baranay capacitor sidee la iskugu geeyaa aan baranay waxaa qasaba inaan baranno sidee waa maxay qaacidooyinka voltageka maxaa lagu helaa capacitorka current capacitorka maxaa lagu helaa power capacitorka maxaa lagu helaa energy capacitorka maxaa lagu helaa waxaan ku bilaabaynaa current and voltage equations of capacitor waxaan ognahay qeexitaanka current what is current hadii lagu yiraahdo waxaad dhahaysaa current waa isbedelka charge-ga waqti gudihiis oo isku bedelayo charge-na waxaa laga wadaa electrons protons iyo neutrons isbedelka ay sameeyaan markii la saaro pressure ama cadaadis la saaro isbedelka ay sameeyaan waxaa loo yaqaanaa current sidaas darteed current waxaa lagu qeexaa the flow of electrons qulqulka electronada ama dhaqaaqa electronada waxaa lagu qeexaa current qaacidada marka lagu helo qeexitaanka iyo qaacidadu way isleeyihiin sidoo kale cashir ka horreeyey haddii aadan daawan meelahan ayaan soo saaraynaa daawo si fiican ku anfacayaa kaas daa soo fahamtaa kan fahmi kartaa waxaan kusoo aragnay in charge-ga capacitorka uu la mid yahay capacitance oo lagu dhifto voltage haddii marka qaacidadan booska intaan waxay la mid tahay charge-ga sax haddii intaan meeshaan lagu bedesho booska charge-ga haddii lagu bedesho intaas lagu bedesho waxaan helaynaa inay current la mid tahay C oo lagu dhiftay change of voltage waqti gudihiis change of voltage waqti gudihiis isbedelka uu sameeyay voltage waqti gudihiis sidaa darteed xiriirka ka dhexeeya voltage iyo current waxaan dhihi karnaa waa directly proportional waa kanaha
waxaan dhihi karnaa xiriirka ka dhexeeya change of voltage iyo currentiga wuxuu la mid yahay linear waa linear oo waxaa laga wadaa linearka maxaa laga wadaa c aa ku dhifsan macnaha cdaas aa u dhexaysa labadooda sloopkaas ayuu u saa'idaya saanu u saa'idaya si toos ah ayuu u saa'idaya qaybtaas waxaa la yidhahdaa voltage macnaha hadda waxaan soo helnay current equation soo helnay current equation haddana waxaan raadinaa voltage equation voltage intaan voltage equationkaas aan u gudbin voltage inta waa kasoo heli kartaa oo waxaad ku heli kartaa meel walba c aa u qaybi kartaa waxaad dhihi kartaa voltage waxay lamid tahay charge oo loo qeybshay c intaana dhihi kartaa laakiin voltage iyo current waxaa la rabaa voltage inaad soo heshid sida resistorka o kale resistorki muxuu ahay ohms law haddaad taqaan ohms law waan soo sharaxnay asna cashar ku laabo haddii uu sheekaaga jiro macnaha current waxaa lagu helayay voltage oo loo qeybshay resistance sidii oo kale voltage waxaa lagu helayay current oo lagu dhiftay resistance marka meel walba labadooda mar walba xiriira ka dhexeeya voltage waxaa xiriir kala dhexeeya current waxaa xiriir kala dhexeeya voltage sidaan oo kale hadda waxaan soo helnay currentiga iyo voltageka xiriirka ka dhexeeya haddana waxaan rabnay inaan soo helno voltageka iyo currentiga macnaha voltageku xiriirka uu la leeyahay currentiga inaan soo helno waxaan samaynaynaa qaacidadana meel walba waxaan gelinaynaa integration halkan integration aan gelinaynaa halkaana integration aan gelinaynaa waatana integration waxaan ka bilaabaynaa minus infinity ilaa iyo tda inta isla bedelayso tdaas inta waqtiga uu ku qaatay minus infinity macnaha minus zero laga wadaa oo wixii zero ka yar minus two kusoo bilaabi minus one kusoo bilaabi karaa ilaa iyo waxaa laga wadaa minus infinity mar leyba inta badan zero ay lamid tahay marka zero ilaa t currentigan gelinay sidoo kale cdan banaanka u dhignayoo waxaan dhahnay intoo kale zero inta ka dhig zero ilaa iyo dv dt oo dt kuwada dhifsan sidaa darteed waxaan dhahaynaa waxaan ognahay integration iyo differentiation waa opposite hadda tan waa differentiation tanna waa integration labadoodu waa isla kansalmayaan markay isla kansalmaan intaanan isla kansalitaan gaarin cdan dhinac walba u qaybinaa halkan c aan u qaybinay halkaana c aan u qaybinaa marka meesha waxaa kasoo baxay one of a c integrationka sida usoo laabtay qaybtan integration usoo laabtay hadda marka integrationkan iyo differentiationka waa isla kansalmayaan waad ujeedaa intaanu waxay lamid tahay intaan ay kasoo baxay macnaha voltage intaan o dhan waxaa kasoo baxay voltageka integrationka iyo differentiationka isla baxay meesha marka waxaa kasoo baxay v bis qaybtan waxaa kasoo baxay qaybtan o dhan waxaa kasoo baxay v aa kasoo baxday vda qaybtan kasoo baxday waxay lamid tahay intaan lamid sidaa darteed fiiri halkan currentigu wuxuu lamid yahay differentiation oo lagu dhiftay capacitor differentiation of voltage oo lagu dhiftay capacitor halkaana voltage waxay lamid tahay integration of current oo lagu dhiftay one of a capacitor ay lamid tahay marka waa opposite isku yihiin labadooda waa fahmi kartaa marka qaacidada rasmiga ah oo voltage capacitor of voltage dil yiraahdo qaacidana ku shaqeynaysaa current of capacitor dil yiraahdo qaacidana ku shaqeynaysaa waxaan filayaa inay caddahay taasna waxaan u gudbaynaa power and energy equations of capacitor sidee lagu helaa powerka maraya capacitorka iyo energyga maraya capacitorka waxaan ognahay power sidiisa guud ba electrical engineering marka la joogo waxaa lagu helaa voltage oo lagu dhiftay current aa lagu helaa sidaa darteed voltageka sideeda hadda u daa macnaha sida usoo qaado waxaan ognahay currentiga hadda wuxuu noola mid ahay c oo differentiation of voltage c oo lagu dhiftay differentiation of voltage sidaa darteed haddii booska current aan ku bedesho intaas waxaa soo baxaysa powerku wuxuu lamid noqonayaa v oo lagu dhiftay c differentiation of voltage macnaha powerku intaasu lamid yahay powerka capacitor powerka sidii raadi lagu yiraahdo waxaa dhahaysaa c oo lagu dhiftay voltage oo haddana differentiation lagu sameeyey voltageki intaanay lamid taha dhahaysaa intaas ayay powerku b intaas lamid tahay sidoo kale energyga waxaa ognahay energygu waa integrationka of power marka ka hadlayno marka energyga integration ayaan ku samaynaynaa qaacidadan powerka sidaa darteed powerkan ku samaynay waan gelinay qaacidadii waa ujeedaa marka waxaan dhahaynaa cdu waa constant qaybtan t ila t aan utixgelinaynaa soo maa tdana waxaan ku bedelinaa v t inta ka dhigaynaa halkaana waxaan ka dhigaynaa v
meeshaana waxaan ka dhigaynaa wixii tiidan baan ka saarnaa macnaa tiidan kor u rarno meesha marka waxaa kusoo hartay sidaana banaankaan geynay oo waa tan ahaa fiiduna waa tan ahaa dfiiduna waa tan ahaa sidaan soo celin sidaa darteed waxaan dhahaynaa haddii waa taqaanaa integration haddii lagu sameeyo x dx waxaa ka soo baxda x square garaysan oo loo qeybshay 2 sidii oo kale anaga dhahnay 1/2 macnaha halkaan 1/2 ka dhigi karnaa haddaad rabtid 2 bisa ku ekay kartaa sidaa darteed ayaan sidii dhahnay sidii waxaan ku dhifanay v square inta kasoo baxday sidaa darteed v-da haddii booska v-da aan ku bedelno qaacidada inta aan soo sheegnay charger wuxuu lamid ahay cv haddii marka v inaan soo helno aan rabno waxaan dhahaynaa meel walba waxaan u qaybinaynaa c v waxay noola mid tahay charge oo loo qeybshay c marka haddii marka qiimahan aan ku bedelno booska v aan ku bedelno waxaa nooga soo baxaya qaacidadan sidee bay kusoo baxday in isweydiisaa laga yaabaa waxaan dhahaynaa 1/2 oo lagu dhiftay c halkan waxaa ku bedelanaynaa q square garaysan oo loo qeybshay c square garaysan kadib cdan iyo hal c waa isla saaraynaa kor waxaa ku dhacaysa q bisay noqonaysaa q square garaysan oo loo qeybshay 2danna hal c oo hoos kusoo hartay lamid tahay 2c sidaasay waxay kusoo baxday q square garaysan 2c marka energyga of capacitorka intaan lagu helaa powerkana intaana lagu helaa marka waxaan u malaynaya waa cadda iyadana sidoo kale hal example aan ka shaqaynaynaa video wuu dheeraaday laakiin haddii aan kala qaadno exampleka mar soo gelino waxaa laga yaabaa in aad ku jiha wareertid sida darteed example aan ka shaqaynaynaa si wixii aan soo baranay ay u noqdaan wax nolosha la xiriira waxaan la siiyey sawirkaan la siiyey wuxuu ka kooban yahay 2 capacitor oo series ah iyo 2 capacitor oo parallel ah see u kala garanaysaa haddaan hore usoo sharaxnay haddana waa ku celinaynaa waxaan dhahaynaa capacitorada labadan capacitor waa parallel see looga shaqey jiray waa la isku diri jiray waxaan dhahaynaa marka 20 oo lagu daray 40 waxay la mid tahay 60 sida darteed sawirkan wuxuu noqonayaa ama sawirka usoo gaabsamaya sawirkan waayo labadooda markaan isku darnay waxaa kasoo baxaysa 60 kasoo baxaysa 60 kasoo baxaysa 60gii halkaan dhigno 60gii ayaan halkaan dhigno 60 markaan halkaan dhigno labadan kalena sideedaan usoo qaadan mar lee waxa say u kala fudud yihiin u kala hormari dhinaca ka bilow say u kala fudud u kala hormari sidaa darteed sawirkan waxaa soo baxday in kulligood ay serious yihiin hadda kulligood hadda waa serious waa sidaa darteed maadaama ay serious yihiin qaacidada seriouskan la aadaynaa waxaan dhahaynaa 1/c equivalency waxay la mid tahay 1/20 koobaan ka bilaabaynaa 1/20 c1 1/30 c2 iyo 1/60 oo ah c3 kadib LCM aan u qaadanaynaa LCM waa naqaanaa oo multiple factor laga saaraa oo factorka ugu weyn ayaan ka saaraynaa maadaama ay isku mid yihiin haddii isku mid yihiin waa la isku dhifanaya waxaas waa hoos xisaabaad oo basic waaye kadib 60 LCM 60 aan u qaadanaynaa qaybta hore sidaan usoo qaadanaynaa qaybta bidixda ah sidaan usoo qaadanaynaa qaybta midigtana LCM aan u qaadanaynaa haddii 60 20 loo qaybsho waa 3 haddii 60 30 loo qaybshana waa 2 haddii 60 loo qaybshana waa 1 kor marka intaan ka soo baxday isku soo dardar intaas tanna sida usoo qaado waxaa ka soo baxaysa 1/c equivalency waxay la mid tahay 6 oo loo qaybsho 60 marka cross multiplication isku dhifo haddii 6 lagu dhifto c equivalency intaan ka soo baxaysa marka saana ka soo baxay meel walba marka waxa u qaybisaa 6 u qaybi 6tan iyo 6tan waa isla kansalmayaan 6 iyo 60 iyo 6 waa isku qaybsamayaan meesha waxaa ka soo baxay c equivalent in la mid tahay 10 halkan marka sawirkan ku laabanaysaa sawirkan wuxuu usoo gaabsamayaa sawirkan wuxuu noqonayaa saan noqonaya wuxuu la mid yahay c equivalence halkan taala c equivalence maxay la mid tahay marka 10 microfarad ay la mid ilaa hadda ogow wax kale ma taaban capacitor bisan ka shaqeyn wixii parallel aan ka dhignay wixii serious aan ka dhignay kadib waan isku wada geynay waxaan ka soo saarnay hal capacitor oo c equivalence intaas markaan helno waxaa noola diray exampleka dhexdiisa waxaa noola diray v1 v2 iyo v3 saddexaasaa noola dira marka waxaa jirtay qaacida aan hore usoo aragnay oo ahayd c q waxay la mid tahay capacitance oo lagu dhiftay voltage macnaha capacitance oo lagu dhiftay voltage la mid ahayd marka si aan q u helno waayo isla qaacidadan waxaan kasoo heli karnaa v1 v2 v3 aan kasoo heli karnaa marka hadda waxaan haysanaa v total waan haysanaa oo caadiya waa tan ahaa cna
waan haysanaa oo mid walba macnaha c totalna waa haysanaa oo waatana sawirkan sidaa darteed waxaan kasoo helaynaa q total aan soo helayna q aan soo helaynaa q waxay lamid tahay 30 oo ah voltageka oo lagu dhiftay 10ka hadda aan soo saarnay 10 microfarad waxaa kasoo baxaysa 0.3 coulomb waxaan soo saarnay hadda chargigaan soo saarnay marka isla qaacidasa waxaan kasoo helaynaa v1 v2 v3 waayo v1 waxay lamid tahay dhihi karnaa q oo loo qeybshay c1 ay lamid tahay sidaa darteed waa tan aha v1 waxay lamid tahay q oo loo qeybshay c1 kadib c1 q waxaan soo helnay qiimahan hadda c1 na waxaan haysanaa 20 microfarad 15 ka soo baxday v2 sidoo kale waxaan kusoo helaynaa q oo loo qeybshay c2 oo la mid ah 0.3 oo loo qeybshay 30 microfarad 10 ka soo baxday v3 na waxaan ku helaynaa v3 waxay lamid tahay v1 oo laga jaray v2 ay lamid tahay 15 oo laga jaray 10 waxay lamid tahay 5 haddii marka waxaa la rabaa ogow waxaan ognahay labadan voltage waayo voltage v4 inta loo dhihi waayo labadooda waa parallelna waxaa mara same voltage waa whole electrical engineering marka hadlayso oo dhan laba shay oo parallel ah voltagekooda waa same sax sidaa darteed ayaa waxaa loo dhihi waayo v4 inta loo dhihi waayo intaas ayaan caawa jecla inaan kusoo gebangabeeyo aad iyo aad ugu mahadsan daawashada videogan haddii aan inta soo gaartay waxaan hubaa inaad diyaar u tahay inaad wax baratid aad iyo aad ugu mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa xushmad ayaa iga mudan tahay waayo wax aan kusoo daalay juhdigeygii iyo dadaalkeygii ayaa waxaa u bedeshay miro dhal maskaxdaadana ku jirta aad iyo aad ugu mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu